waxaan maanta barnaamijkan ku soo qaadan doonaa 7 qodob marka lagu sheego qodobo fara badan hays oran kulligood wada fuli waxaad isku daydaa ugu yaraan inaad ku guuleysatid hal shay oo kaliya waxa laga yaabaa inaysan waxyaabaha la sheego dhan naftaada ka khaldanayn hal shay marka laga reebo maahane marka haddaad hal shay ku guuleysatid waxa tahay qof maaragtay horumaray markaan mar walbana ka hadlayno nafta iyo dhiirigelinteeda waxaan isku dayeynaa in nafteenu ay noqoto naf adduunkana nolol raaxa leh ku nool oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raali ka yahay aakhirana marka rabbigeed la horgeeyo naf adduunka markay joogtay xisaabtami jirtay ha ka saarina marnaba taladaada iyo jadwalkaaga ha ka bixinin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha noqdo priority-ga ama waxa ugu sareeya jadwal maalmeedkaaga Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa qof aan Ilaahay ku xirnayn oo salaaduhu ka dayacan yihiin oo waajibaadka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu u diray ay wada khariban yihiin si kastood adduunyo ugu dadaashid guul kama gaari karaysid illa inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xirnaatid maahane qofka mu'minka yoolka iyo meesha uu tiigsanayo waa Ilaahay hor istaagiisa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa yeenan horumar adoo leh aysan sabab kuugu noqon waajibaadka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu ku diray inay ka dayacmaan maanta 7 qodob ee aan jeclaysteen idin la wadaago qodobka ugu horeeya waa qodobka 7 markaad faraxsan tahay waxba ballan qaadin waliga waqtiga aad faraxsan tahay waliga waxba laba ballan qaado farxadda noloshu ma aha inaad xaalad wanaagsan ku sugan tahay ee waa mar walba sida aad iyo dabciga aad ku wajahdid xaalad kasto nolosha ku soo maraysa haddii ay wax ku soo maraan ku farxad geliya waliga waxaad iska ilaalisaa oo ka fogaataa inaad ballan qaadid waxaana dhacda qofku 99% inuu ka shalaayo wixii uu ballan qaaday markuu faraxsanaa waxa muhiim ah marka xaaladda aad faraxsan tahay in aad iska ilaalisid shayga liyado ballan qaadka hadduu qof ku keeno wax ku farxad geliya oo aad dareemaysid in uu kaaga sabanayo wuxuu nolosha kamid ah waxaad iska ilaalisaa xataa marka inaad ballan qaadid maxaa yeelay qofkani wuxuu kugu farxad gelinaya isaga doortay inuu sameeyo qodobka 6 markaad caraysan tahay waa farxadda ka soo horjeedkeedeen markaan caraysan tahay waxba go'aanaha gaarin waxa dhacda iyaduna sidoo kale in uu qofku aad uga shalaayo go'aan uu gaaray isagoo caraysan maxaa yeelay go'aanka carada salka ku haya wuxuu dhalaa waa shalayto naftaaduna way ka qaalisan tahay in ay shalayto ku noolaato sida darteed waxa aad isaga ilaalisaa in aad go'aan gaartid adigoo caraysan qodobka 5 dadka kuwooda liita waa kuwa dadka liida kuwa dadka u arka inay wax dhaamaan kuwa qabka iyo isla weyninku ku jiro dadka noocaasa waxa dhici doonta maalin inay kugu sheekaysan doonaan iyagoo ka sheekaynaya siday kugu barteen hadalka waxaan ka wadaa waxaa jira dad fara badan oo aragtay oo ka sheekaynayo le wasiir hebel iskuul baan dhigan jirnay wasiir hebel xaafad baan wada deganayn madaxweynaha meel baanu waa ka wada cashayn jirnay daris baanu ahaan jirnay wax la mid ah dadkaas waxay uga sheekaynayaan qofka darajada sare bulshada dhexdeeda ka jooga waxay rabaan inay ku dareensiiyaan qofkaas sare inay maalin la kulmeen shalay qiimaha inta leeg uma haynin markuu dariska la ahaa laakiin maanta magaca iyo maamuuska qofka kani uu bulshada ka dhexleeyahay ayaa keenaysa in uu isku daba lifaaqo raba marka oo ku muujiyo dadka sarsaran xiriir la lahaan jiray marka waxaad noqotaa dadka aamusan kuwa liitana noloshooda ka fogeeya waxaana dhici doonta maalin inay kaaga sheekayn doonaan qodobka 4 dadka beenta sheega dadka dareenkaaga khiyaana ee been wuxuu kaaga sheegay weyn oo noloshaada kamid ah dadka noocaasina waa kuwa liitay naftaada ka fogey maxaa yeelay waa un laba mid waa midda koobaad marna ma aamini doonto qofka waana midda labaad ee shaki uun baad qofka hadalkiisa mar walba kaaga jira maxaa yeelay dareenkaagu khiyaanay qofku khiyaanay oo been ku sheegay noloshaadu way ka qaalisan tahay waqtigaagu waa ka qaalisan inaad been ka dhageysatid qof oo maanta dhan waliba uu kugu dhaarto kugu celceliyo dadka noocaas naftaada ka fogey
haddaad doonaysid inaad ku noolaatid nolol taya leh oo farxad leh ood ku qanacsan tahay oo kalsooni ka buuxdo. qodobkeenna saddexaadna wuxuu yahay soo noolaynta wixii ku dhaafay. wixii ku dhaafay waxba ku tari mayso soo celintoodu. hadday wax farxad leh ahaayeen waa shay la gartay, laakiin haddii waxaasu in yarna qalbigaaga wuxu dhimeen, ma mudna naftaadu way ka qaalisan tahay inaad ku dullamisid wakhtigaaga. haddii qof uu maalin ku xumeeyey ama qodobkii ugu dambeeyey muxuu ahaa dadka beenta kuu sheega, hadduu qof maalin been kuu sheegay, ma mudna qofkaasu in uu noloshaadana ku jiro adna aad maalin walba soo celcelisid. laba dhibaatayna leedahay. adna ma qancaysid, qofkaasuna mar walba dhib buu kugu qabayaa. xataa hadduu damco inuu maalin walba run kuu sheegana isaga laftigiisu dhib buu kugu qabaa. taasu waxay ku baraysaa adiga laftigaaguna beenta iska ilaali. qofka wanaagsanna waxaa lagu yaqaana calaamadihiisa waxaa ka mida runta. run ku noolow. wixii ku soo dhaafay marka haddii ay beentaasu ka mid ahayd iyo waxyaabo kaloo fara badan takharrada ku soo gaaray, waxaad ogaataa laguma dhayo nabar, garaacid laguma dhayo, ee daawo iyo daryeel, nadiifin, nasasho, waxyaabahaasaa lagu dhayaa. waxaad naftaada marka kaga dawaysaa wixii ku soo dhaafay oo mar walba aad soo celcelinaysid inaad ka fogaatid waxaa sababta kuugu noqonaya soo celcelintooda. hadday qof tahay, hadday meel aad deggan tahay iyo haddii jawi kalood ku jirtidoo nolosha ka mida uu yahayba. qodobka labaad, marna ha ka cabsanin isbeddelka. isbeddelku waa waxa in fara badan dadka cabsida ku haya maanta, noocay doontaba ha noqoto, dhan kastoo noloshaad ka wajahdidba. adduunyadanaynu maanta u jeedno, horumarkaaynu arkayna ka muuqdana waxa keenay waa isbeddel. rag inala mid ah iyo dumar nool oo bahda ilmo aadam ka tirsan ayaa cabsidooda intay dhinac iska dhigeen ku dhaqaaqay. waxaad ogaataa adduunyadan maalmaha aad nooshahay way kooban yihiin. ha noqonin qof adduunka soo maray oon waxba laga tabin, wax calaamada adduunkanaan innaba raad ku samaynin. waxaa naftaada aad ku dadaashaa haddaad mar aragtid ina aadam 9 bilood mid ku dhasho adiga kula mid ah shaygaa uu sameeyey. maantana adduunyada waaba la soo koobay. waxyaabo fara badanoo maanta aynu ka cabsan lahayn dad baa inooga horreeyey oo jabkoodii taariikh intay ka qoreen bugaa ka qoray. waddadaa ka leexo, waddadan markaan 200 oo waddo ku guuldaraystay ayaan markii ugu dambaysay waddadan ku guulaystay. waaba lagu soo koobayba. rag iyo dumar kalaa adduunyada joogay baa inooga horreeyey jabka. sidaa darteed wixii aad og tahay in ay anfac kuu leeyihiin, wax ku tarayaan, noloshaada farxad gelinaya, adduunyadanna aad ku noolaanaysid nolol raaxa leh, aakhirana ilaahay tabaaraka wa tacaala hortiisa aan wax dembiya lagaga qabsanayn, ku dadaal hana ka cabsan. qofka bini'aadamkaa sideedana maskaxdeennu inta badan waxay u taagan tahay inayna difaacdo, wax kastoo dhiba inayna ka difaacdo. waxyaabo fara badan oo horumar leh marka oo waxaa jira marka ay kuu soo baxda fursaddoodu nolosha ay markaba maskaxdeennu diidayso. waxaa ka mid a maskaxdu waxyaabaha ay diiddo waxaysan hore u aqoonin. maskaxdeenna marka qaabka ay u samaysantaha waxay tahay isbeddel kastoo qofku damca inuu sameeyaba waxay rabtaa inay difaac gasho. markaasuu qofku wixii ka baqayaa marka waxaa u soo baxaya marka bal ka waran haddii saan noqon weydo, weligaa horta hore ma u samaysay. waxaad ogaataa oo kale ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aanka wuxuu ku leeyahy wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a. qof dad in fara badan baad maqashaydu laleeyahy qofkaasu kartidu u dhashay, laakiin waxaan kuu sheegayaa oo dhalasho ma aha ee waa barasho. ilaahay subxaanahu wa tacaalana isagaa dadka wax bara. haddaad dadaal ku jirtidna waxaad ogaataa allah tabaaraka wa tacaala kuma mooga. adduunyadaiyo waxa dhex yaalana isaga iska leh. qodobkeenna koobaadna maanta wuxuu yahay marna ha isku daalin inaad bini'aadamka raalli gelisid oo noloshaada u qaabaysid sida iyaga farxad gelinaysa, oo u hadashid sida iyaga ay ku qancayaan, oo aad u tallaabo qaadid sida iyaga ay u arkaan inay hagaagsan tahay. dadku siday kuu arkaan waxu macnaa ma laha. waxaad adigu tahay ama isu haysatid ayaa wax walba ka muhiimsan. haddaad og tahay naftaadu inay hagaagsantao toosan tahay, ha isku dayin in aad bini'aadamka sida ay iyagu doonayaan noloshaada u qaabaysid. waxaad ku dadaashaa waxa adiga ku farxad gelinaya oo caawa markaad joodariga tagtid aad dareemaysid farxad fara badan.
waxaad ku dadaashaa adigu waxa aad tahay taasaa muhiim ah laakiin ha isku dayin inaad u noolaatid ama aad ku noolaatid fikirka qof kale waxaad dadaal dheeraada ku bixisaa in fikirkaagu uu yahay midkaad ku nooshahay go'aankaagu inuu yahay midka aad ku nooshahay ugu dambaynna waxaad ogaanaysaa cunaqabataynta noloshaada saaran inaad adigu isa saartay markaad silsiladaha kugu xiran iska jebisid ayaadna dhadhamin kartaa farxadda iyo macaanka nolosha subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin